wanaagsan oo wacan asxaabay waxaan ka sheekeynaynaa maantay roobka iyo faa'iidooyinka uu leeyahay. Roobku wuxuu leeyahay ilaa iyo 23 faa'iido inta anigu aan garanayo iyo ka sii badan oo aanan garanayn. Waxyaalaha roobka laga helo waxaa ka mid ah kow dhirta oo cagaarata. Dhirta hadday cagaarato kow indhaha way u roon tahay. Indhahaagu waxay noqonayaan kuwo dareemaya naxariis iyo caafimaad. sidoo kale nolosha adduunka oo dhan way badataa sababtoo ah geedaha waxa ka baxa miraha oo inta badan nolosha aadamigu waxay ku dhisan tahay 90% miro. Sida bariis hadday cunayaan waa mir, hadday baasta cunayaan waa mir, hadday isticmaalayaan cunooyinka kale ee cunooyinka cambuulooyinka iyo digiraha iyo galleyda iyo waxa loo yaqaan oo dhan waa wax wada mir ka samaysan. mirtana waxaa soo saara roobka waxayna baxdaa mirtu caleen kadib. sidoo kale dadka dunida jooga oo dhan wuxuu cunaa hilibkaas oo ah hilibka noolabadeedka iyo noolabiriyeedka oo ay ka mid yihiin ariga, geela, lo'da iyo xayawaano kale tiro badan ay dadku cunaan. iyo xataa dadka gaalada ah ee ayda iyo waxyaalo kale oo badan sidoo kale ugaaro ay aadmigu cunaan tiro badan. markaan tirada isku rogrogo wax badan cabiro waxaan almuhiim helayaa in ay tahay mar walba nolosha aadamigu inay ku dhisan tahay caleenta iyo miraha. sida aan halkaan aragnaba marka roobkuna waa isha kaliya ee horumarka. hadda waxaan qiyaasan karnaa sida roobkaasi daruurahaasi u qurux badan yihiin iyo geeduhu sida ay isugu soo baxayaan ay indhaheennana u maaragtay deeqayaan si wanaagsan. marka la cabiro dhanka ay daruurtu ka yadhahay naf badan kama jirto, laakiin dhanka daruurta jirto ayaa waxay kugu yeelan kartaa saameyn. halkan aan xogtan idinkaga soo duubayo waa bar anigu aan ku noolaa, guriga anigu aan deganahay weeye oo ku yaala magaalada Galdogob. marka wax cabiro waxaad halkaa ka arkaysaan in roobku uu yahay naxariis aan laga maarmi karin marna. waxaan joogaa bartaas hadda aad arkaysaan. waxaan kale oo anigu ogaaday oo akhriyay waxyaalo badan oo khayraadka roobka iyo faa'iidooyinkiisa ah. roobka haddaad mar walba daraasayso waxaad ogaanaysaa inuu roobku yahay nolol aan marna laga maarmi karin. hadda waa kan geed baan iska hoos harsanayaa, geeda ayaan tilmaamayaa, waxaan la sheekaysanayaa qof kale. markaad cabirto marka daraasad fikir ayaan maskaxda u diray. anigu waxaan ahay ninka Cabdullaahi Siciid Sheekh Xasan baa la yiraahdaa, ama Cabdullaahi Siciid Xasan saa u taqaanin, ama Cabdullaahi Xasan baan ku isticmaalaa barahayga internetka qaarkood. sidoo kale magacayga internetka aan kusoo galan waxaa loo yaqaanaa Daaraan oo YouTube-ka ah. Daaraan waxa weeye Daaraan kow. sidoo kale waxaan kusoo galaa website-kayga daaraan.com. marka halkaan markaad cabirto meeshaan hadda jawi degan baan ku jiraa, geedahaas ayaan la ciyaarayaa, halkaas ayaan marayaa. kusoo dhawaada subscribe iyo like iyo